الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka soo hadalay maqaasid الصيام iyo مظاهر الرحمة في فرضية الصيام, bal waxaan iskor taagaynaa arkaan الصوم وشhuruuduhu. soonku arkaan buu leeyahay, shuruudna uu leeyahay. rukni muxuu yahay? waxaad odhanaysaa rakana ila اlamri, ay maala ilayhi wasakana, uu maaragtaa u leexday uuna ku xasilay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ila aladiina dalamuu walaa tarkanuu, ha u iilanina ila aladiina dalamuu, kuwa dulmiga sameey xaggooda ha u iilanina, ay laa tamiiluu, ha u iilanina xaggooda. wataskunuu ila adaalimiin, markaaad ku xasishaan kuwa daalimiinta ah xaggooda aad ku xasishaanoo aada acmaasha ay sameynayaan dee ka mid noqotaan. waruknu shay-un, waa ruknigu waa shay jaanibuhu laqwa, waa dhinaca xooga badan le ayaa la yidhaha rukni. islaamku arkaan buu leeyahy, arkaan lislaam waa maaragta tiirasha uu islaamku ka indilaaqay u ka bilaabmay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala calaa lisaani nabiyihi luud, low ana lii bikum quwa, haddii ay xaggiina iiga sugnaan lahayd awood, ow aawi ilaa rukni shadiid, ama aan u iilanayo aan ku tiirsanayo rukni adag, bimacnaa dad awood leh ay agtayda joogaan oo maaragta jaah iyo weji kule mujtamaca, macnaha culayskaa maanta ad ugu haysan umaysan, saasoo kale wey. in badan oo maaragta fuqahada kamidi waxay maaragtay ka cabireen rukniga bishardi, shardigo kale ka cabireen. waxay ula jeedaan minhu maa laa budda minhu, waa wixii lagama maarmaana ee marnaba aan laga maarmayn. soonku haddaba laba rukni buu leeyahy. rukniga koowaad muxuu yahay? waa aniya. qofku haddii aanu soonka niyadda ku qaban inuu soomo oo habeenkaa aanu niyeysanin soonkii, dee maaragta ma dhacayo. macnaha waa qasadkii inuu qastiyo uu niyadda ku qabto. muraadka iyo danta laga leeyahay maaragta niyada waxa weeye halkan waa qasdu soom, soonkii inuu u qastiyo. wadaliilu calaa ana niyata ruknu lisixati siyaam, daliilkuna waxa weeye waa rukniga uu ku asaxayo soonku, waxaana daliil u ah camal kasta oo la qabanayo inuu niyada ka guntamo. xadiiskii maaragta ay warineysay xabsa radi allahu canha, cumar bn khadaab ay ka warineysay, muxuu yihi maaragta nebigu salى اllahu عalayhi wasalam, inama alacmaalu bالniyaat wainamaa likuli imri'in maa nawa. inamaa in kale maahan, yani adaatu xasri, wax kaleba maaragta xaggeeda ha fiirini, acmaashu waa niyada. inama alacmaalu acmaashu bالniyaat, waa niyooyinka wixii la niyoodo wey. wainamaa in kale maahan likuli imri'in, qof kastaaba maa nawa, wuxuu niyoodu leeyahay. marka halkaas waxaa ka guntamaya, haddii niyaddii la waayo oo niyaddii qofku aanu la iman, una niyeysanin, dee una habeenkaa ku beryin beri tooliya inuu soomo, dee maaragta waqti cadceedu soo baxday ma noqonaysa inuu yihahdo waan soomayaa maanta. waa inuu niyeysto, waa inuu niyadda ku beryo, waa niy, waa rukni wey. xadiiskaasaa inoo cadaynaya. marka maaragta waa kii xadiiskii ahaa, man lam yubayit siyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu, rawaahu axmed wa asxaabu sunan. qofka aanan ku waaberiisan soon, aanan niyadda ku qaban intaanan waagu beryin, falaa siyaama lah, soon u leeyahay ma jirto. qofku inuu khaadiradiisa ku baraarujiyo si maaragta talafud inuu yihah naweytu sooman, laakiinse muhiimaddu waa qalbiga wey. waa inuu qalbiga maxay ahaydaane ka niyeysto. waxa weeye waayo waa camalu lqalbi wey, inuu qofku niyeysto inuu beri soomayo, inuu niyada ka niyeysto. xaqiiqadeeda xaqiiqatihaa alqasdu ila alficli imtithaala liamri llah, taasi xaqiiqadeeduna waxa weeye in la qaato amarka ilaah. wadalaban lithawaabihi, iyadoo la rabo ilaahay subxaanahu watacaala ajarkiisa iyo thawaabkiisa. waxaa loo shardiyey niyada lisawmi ramadaana atabyiit, inuu qofka ku waaberisto.
wahuwa iqaacu niyati leylan habeennimadii waa inay dhacdo lixadiisi xabsa almutaqadim xadiiska aan soo sheegnay ayaana daliil ah. niyaduna waxay ku saxmaysaa habeenka qeyb kamida qofku inuu niyeysto, maaha qasab in wakti mucayana oo habeenkii kamida inuu niyeysto, sida dadka qaarkood ay yidhaahdeen marka maaragtay afturaan kabacdi ha niyeysano. may habeenka waktigii doonaba ha ahaato, markaad suxuuranaysa iska niyeyso, haddaad doonto maaragta habeenka markaad seexanaysa iska niyeyso. wakti kamida maaragta habeenka inuu qofku niyeysto, inuu ka fogaado qofku inuu saydaanku waswaasiyo oo niyada ka waswaasiyo. niyadu uma baahna takaluf iyo maaragta culays. sidoo kale haddii uu suxuurto oo habeenkii suxuurto ku suxuurto biniyati sawmi qadan, iyaduna waxay tahay in soonkaasi inuu dhacay. wabillahi towfiiq. sala allahuma calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin.